in magacii Somcable intiisii hore kor uga kacay isagoo oo wadanka Kenya xadhigii ugu horeeyay ee badda berbera la soo dhigo iyadoo oo Somcable ka dhigaysa berbera inay noqoto international submarine cable hub oo kii ugu horeeyayna iman doono bartanka bisha saddexaad ee sanadkan aynu ku jirno. shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somcable ayaa Somaliland markii ugu horeysay keenaysa xadhig internetka oo ka soo gudba dhanka badaha caalamiga. shirkaddu waxay sheegtay in bisha March ay dekedda berbera soo gaarsiinayso xadhigaasi. sidoo kale Somcable ayaa berbera ka dhisaysa xarun buddig u noqonaysa xadhkaha internetka fiberka ee caalamiga ah, taas oo badi qaaradaha dunida u sahlaysa inay berbera ka jiitaan xadhkaha internetka ay u baahan yihiin. madaxa waaxda xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Somcable Cabdirasaaq Xasan Rukuub ayaa waxa uu ka hadlay arrintaasi. Somaliland waa dal curdin ah oo aan la aqoonsanayn, baahi weyn u qabta in ay hesho maalgashi si loo dhiso kaabayaasha dhaqaalaha. ganacsade Maxamed Aw Saciid Geedi wuxuu ku dhiiriday keenida xadhiga fiber optic isagoo ah ganacsade aan lacagtiisa ka samayn wadanka gudihiisa, sidoo kale aan ku jirin ganacsiga isgaarsiinta. ayuu hirgeliyay maalgashiga ugu weyn ee wadanka muwaadin ka sameeyo isagoo dhiirigeliyay ama suurtageliyay in muwaadiniinta iyo shirkadaha caalamiga ahi ku soo dhiiradaan in ay Somaliland maalgashadaan. fiber optic ama xadhiga fiber optigu waa hanti qaran ama waa national asset. heshiiska Somcable iyo Somaliland, xukuumadda Somaliland wuxuu ahaa in Somcable dusha u ridato keenida xadhiga fiber optic kaas oo wada gaadha dhammaan gobolada Somaliland, maantana ka shaqeeya in ka badan 1600 oo kiiloomitir, sidoo kalena isku xidha 3 dal. shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somcable ayaa Somaliland markii ugu horeysay keenaysa xadhig internetka oo ka soo gudba dhanka badaha caalamiga. shirkaddu waxay sheegtay in bisha March ay dekedda berbera soo gaarsiinayso xadhigaasi. sidoo kale Somcable ayaa berbera ka dhisaysa xarun buddig u noqonaysa xadhkaha internetka fiberka ee caalamiga ah, taas oo badi qaaradaha dunida u sahlaysa inay berbera ka jiitaan xadhkaha internetka ay u baahan yihiin. madaxa waaxda xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Somcable Cabdirasaaq Xasan Rukuub ayaa waxa uu ka hadlay arrintaasi. in la wada isticmaalo lagana wada faa'iideysto xadhiga fiber optiga guniyo gunaanad. waxaa maanta mar labaad noo farxad ah in aanu la wadaagno bulshadayada bushaaro aad u weyn oo ah in magacii Somcable intiisii hore kor uga kacay isagoo oo wadanka Kenya xadhigii ugu horeeyay ee badda berbera la soo dhigo iyadoo oo Somcable ka dhigaysa berbera inay noqoto international submarine cable hub oo kii ugu horeeyayna iman doono bartanka bisha saddexaad ee sanadkan aynu ku jirno, isagoo oo isku xidhi doona badi qaaradaha adduunka. Luqmaan Maxamed Faarax, MMTV, Hargeysa.